maanta adduunyaad joogtaa laakiin baritoo aakhiraad tagaysaa laakiin qof walba waxaad ka fikirtaa ilaahay maxaad la hortagaysaa waxaad adduunyada ka qaadato khayr iyo shar unba aakhira lagugu sarrifi doonaayo ogow ninbaa soo galay magaalada markaasuu nin sheekhu argo wuxuu ku yidhi magaaladii camirnayd i dhexgee magaaladii camirnayd ee dhisnayd baan rabaa in lay tusee magaaladana waan ku cusubahay igee ibraahim aladham baa kaxeeyey allah u naxariistee magaaladii camirnayd baan rabtaa miyaha isoo raac uu kaxeeyo magaaladii buu ka saaray markaa buu yidhi war magaaladii camirnayd ee suuqa iyo macdaarada iyo bakhaarada iyo ganacsiga lahayd baan ku weydiinayaa adiguna magaalada bannaankeygii baad iigu wadaaye wuxuu yidhi magaaladii camirnayd way dhowdahay ina mari qabuuraha intuu dhex joojiyey buu ku yidhi magaaladii camirnayd waa taasuu ka yidhi wuxuu yidhi waa qabuurihii wuxuu yidhi tan cidda timaadda kama noqoto cidda timaadda kama noqoto laakiin dadka magaalada maalin walba 40-50 qof baa ka soo baxda halkana yimaadaanoo halkana camirmaysa dadka halka soo galana ma noqdaan buu yidhi taa way naaqusmaysaa tanna way biiraysaa buu ka yidhi yaa muqafal innagu waxaan leenahay magaaladii baydhabo way dhisantay magaaladu ma dhismine qabuuraha dhismaaya magaaladu may biiraysaa mise qabuuraha biiraya bal iga jawaaba qabuuraha camirmaya waayo dadka magaaladan ku nool maalin walba 50-40 qof baa dhimanaysa oo laga kaxaynaya laakiin dadka qabuuraha gala qabuuraha kama soo noqdaan iyagu marka ta aan laga soo noqon baa camiraysa tan laga baxayo dadkeegu way sii yaraanayaan ta aan laga soo noqonayn baa iyadu camirmaysa waa qabuuraha weeyaan waa qabuuraha habeenada ka mida ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam almu'miniin caaisha radiyallahu canha aqalkeedu nebigu jiifay markaasuu nebigu ku yidhi caaisha caawa ma iska kaydayn ilaahay han caabude markaa bay ku tidhi ha iska cibaadayso deedna nebigu intuu sare kacay buu tahaaro qaatay uu qubaystay deedna u weysaystay salaad buu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam salaaddii buu nebigu aad u dheereeyey deedna caaisha radiyallahu canha waxay tidhi waan gam'ay in yar kadib baan soo kacay aqalkii baan taataabtay agtaydii nebigu ma jiifo waan eegay ma taagna nebigu ma joogo meesha waxay gala dareenoo waxaan is idhi kollay nebigu reerihiisii kaluu caawa u guro reerihiisii kaluu u tegey markaasaa ka soo daba baxay tidhi waxaan arkay shakhsi qabuurihii baqiic dul taagan oo ooyaya oo ducaynaya markaasaan gadaashiisa nebiga fadhiistay markaasaan fikiroon is idhi alla caaishaay waad ceebowday maanta adigana maseer baa ku soo kiciyey xilliga oo waxaad is tiri nebigu reerihiisii kale reer ka miduu kollay u tegey bal doondoon nebi maxamedna qabuuruhu dul taagan yahay uu ooyayaa muntasifa alleyl ayaa nebigu salaataleylkii markuu tukaday qabuuraha intuu isdul taagay buu nebigu qabuuraha ayuu dul joogsado aakhiradu nebigu xasuusanaya daadna markaasay caaisha hayar intay u soo noqotay ayay qol aqalkeygii soo gashay gogashiiba hoosta ka gashay markaa nebigu waa u jeedaa calayhi salaatu wasalaam min mucjizaatihi waxaa ka mid a baa la yidhi sida nebi maxamed xagga hore wax uga arko ayuu xagga dambana uga arki jiray baa la yidhi deedna markaasuu nebigu markiiba uu arkay uu iska soo noqday deedna ugu yimiday caaisha oo gogashii markaa faraashkii hoosta ka gashay buu u yimiday markaa buu nebigu kor fadhiistay wuxuu ku yidhi caaisha maxaa dhacay buu adiga soo jeedee markaa bay ku tiri waxba markaasuu yidhi sawdigii ilaa qabuuraha ay daba yimiday ma markaasay tihi yaa rasuul allah adiguna waadi kalaad socotaa annaguna waadi kalaa socnaa bay ku tiri adiguna waddo kalaad socotaa oo aakhiro iyo qabuur iyo maaragtaane xisaab iyo janno iyo naar iyo diin iyo ummad baad ka fikiraysaa annaguna bashar baanoo dumar baanoo waa iska maseeraynaa baa tiri raalli ah oo iska saaxay ku tiri waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaad ilaahay ka cabsato oo aakhiradu kula weynaato oo mar walba dhimashadu ku hor taallo noloshaada adduunyadu way toosnaan haddaad allihii ku abuuray mar walba aad xasuusan tahay aakhirada aad u socotana ay ku hor taallo
in la dhimanayna aad ku xisaabtamaysid xaqa ilaahay waad ku toosnaan xuquuqda bini aadamkana waad iska ilaalin xaqa ilaahay inaad ku toosnaata waxa u sababa waa alla ka cabsi waa inaad garataa ilaahay marka horeysa xuquuqda bini aadamka inaad iska ilaalisana waxa u sababa waa inaad garataa aakhira inay jirto lagula xisaabtamayo haddaad ilaahayna xasuusanayn aakhirana aad xasuusanayn noloshaada adduunyada waxay noqonaysaa kacakuf waad kacakufi noloshaada diintaaduna waxay noqon istiqaamo ma yeelanaysid diinta istiqaamo ku yeelan maysid diinta istiqaamo inaad ku yeelataa oo diintaada ku toosnaataa alla ka cabsi baa u shardiyaya iyo maaragtaan inaad aakhirada kula weynaato سعيد بن زيد رضي الله عنه ayaa waxa ka soo cabatay islaan duqa amiirkii muuminiinta Usmaan bay u timiday markaa bay ku tiri Saciid ibn Zayd ninka la yiraahdo dhulkaygii buu qaybiga qaatay waliba ceelka biyaha halka ku yaalan aniga alla bay ku tiri Usmaan ibn Affan baa u yeedhay Saciid ibn Zayd Abul A'war wuxuu ahaa nin ducadiisa la aqbala buu ahaa tobankii jannada loo bishaareeyay buu ka mid yahay dadna markaas uu yeedhay wuxuu islaantan duqda hiblaayaa ka cabanaysa waa ka ashkatoonaysa oo maxay kaga ashkatoonaysa waxay leedahay dhul aan leeyahay buu iga qaatay waa dhulka halkaaya weeyaan dhulkiisa xiga waliba ceelka biyaha leh meeshiisa ku taalana aniga alla bay tiri سعيد الله رالي كان نقضي وحور يا أمير المؤمنين أنو لبدا إذا دقود وحن كم مغلي وان كم مغلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أوله تاكين لك أو دول حق الناس وفك حق درك قاتبوا نبي يري وحلقوا عقابا آخره تضبط دول أيا سلسلة انتو كحر قورت اللوغلية silsilad intoo lagu xidhaa qoorta loo suraa deedna waxaa lagu amraayo lagu ciqaabaa inuu jiidu la kaco mana jiidi karaayo hadalka aanu nabi maxamed ka maqlay may kula tahay dhul dad leeyahay inaan gardarro ku qaadan gacmuhu cirka u taago wuxuu yidhi ilaahu hadday igu been abuuranayso indhaha ka qaad ha dilin adoo indhaha ka qaada mooyaane ceelka ay sheeganaysan ilaahu qabrigeyga ka dhig buu yidhi dhalfis siiya buu yidhi dhulkay sheeganaysay iyo ceelkiiba siiya laakiin waxaa kuu sheegayaa Uthmaanow xadiiska nabi maxamed anigoo ka maqlay may kula tahay adiga dhul bini aadan leeyahay inaan qaadan anu haba qaadatay siiya وعلى dhulkii waa la siiyey maysan dhimanin ilaa iyadoo nool baa ilaahay indhihii ka qaaday markaasay odhan jirtay habaarkii Saciid ibn Zayd baa igu dhacay iyadoo socoto oo habeen sidaa u socotay lawa indhalaadahay beerteedii dhex wareegaysana ceelkii ay sheeganaysay isaga ka qaadatay bay ku dhacday halkii baa laga dhigo qabri looga dhigo lagu asalay dul xaqan naas inuu dhaco waxa ka hor taagan waa maxay xadiiska nabi maxamed oo maqlay calayhi salaatu wasalaam يخافون آخره كو حساب تميين إلهي إلا كل جيسي كو حساب تميين يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية قرآنك إلهي كل شيء قيامته ومالين تخلائق دوران لصو صار إلهي الله بندقي دونه banka qiyaamaha la joojin khalqiga ka xisaabayna waa ilaahay saddex siyaabana waa lagu soo saaray khalqiga qolada u horeysa buu nabigu yiri fawjan raakibiin
qola qabuuraha markay ka soo baxaan ba fardaha jannada loo keenay buu nabigu yiri deedna arshiga ayaa la hoos geynayaa qolana waxa uu nabigu yiri waa maashina ala arjulihim labadooda lugood bay ku soconayaan ilaa iyo maxsharka halka khalqiga lagu xisaabayo qolada saddexaadna buu rasuulku yiri wajigay ku soconayaan buu nabigu wajigooda saxaabi ayaa hadloo yiri nabi allah sidee wajiga loogu socon doonaa markaa buu nabigu yiri ilaahi bani aadanka arlada dusheeda lugaha ku socodsiiyay waa qaadir inuu maalinka mujrimiinta madaxa ku socodsiiyo ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم صما وعميا وبكما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا بايلا هيري dadkii mujrimiinta ahaa adduunka dusheeda mujrimiinta ahaa dunuubta badnaa ee ijraamkii macaasida iyo qafladii diin la'aanta ku jiray banka qiyaama ayaan soo saari doonaa baa ilaahay yiri iyagoo aan maqlaynin oo aanan arkaynin oo aanan hadlaynin saddexdaaba waa laga xidhi doonaa markaasay madaxa ku soconi doonaan deedna markaasaa jahannama lagu guri doonaa jahannama marka holaceegu u naaqusmaba baa ilaahay yidhi saciira ayaan ku hurinaynaa baa ilaahay yidhi walciyaadu billaah saciira waa naar naaraha ayay hurisaa deedna halkaasaan ku hurin doonaa baa ilaahay yidhi hadday naarta ay galaanna uma laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa mana dhimanayaan mana noolaanayaan waayo dhimashadu waa nolosha adduunyada lagaga tagaa mooyaane aakhira haddii mar la tago dhimasho ma jirto ee qolana naar bay ku waariyaysaa qolana janno ayay ku waariyaysaa kuwa jannada ku waariya allah inaga dhigo yawma naxshuru almuttaqiina ila arraxmaani wafda wanasuuqu almujrimiina ilaa jahannama wirda yawma naxshuru almuttaqiina dadkii ilaahay adduunka dusheeda kaga baqaayay waxaa soo xashrin doonaa baa ilaahay yidhi iyagoo wufuuddu markay imanayso waa laga hor yimaadaa gawaarida ugu fiican baa loo keenaa huteelada ugu qurux badan baa lagu soo dhoweeyaa waddooyinka magaalada ugu qurux badan baa la mariyaa dharka dhar ugu qurux badan baa loo xidhaa marka la soo dhowaynayo dadka akhyaarta magaalada ayaa soo dhowaysay akhyaarta wufuudda ilaahay maalinka qiyaamaha la leeyahay muttaqiinta iyagoo wafdiga ayaa soo xashrin doonaa markuu ilaahay leeyahay wafdiga ilaahay maxaa lagu soo dhaweyn baad u malaynaysaa wafdiga ilaahay allah inagu daro aamin dhahada ayaa u diyaar wafdiga ilaahay in lagu daro yawma naxshurul muttaqiina ila arrahmani wafda wa nasuuqul mujrimiina ila jahannama wurda waan ku arorinaynaa baa ilaahay yidhi jahannama kuwee mujrimiin kuwii ijraamka samaynayay kuwii dunuubta badnaa ee gaalada ahaa naarta jahannama ku aroorinaynaa baa ilaahay yidhi aroorin xoolaha marka la aroorinayo darka lagu aroorinayo xagga dambaa laga soo maraa mujrimiinta maadaama naar la geynayo malaa'igtu xagga dambe ka garaacaysaa amaa muttaqiinta maadaama janno iyo loo wado ilaahay rudihiisii wufuuddu iyaka way ka hor iman doontaa baa layidhi xagga horaa laga iman doonaa iyaka لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر أرقق حوين يدعي دون با إلى هيري داتكي مؤمنين متقين تاها أرقق حاسم السامين دون با إلى هيري ما أرقق حناي وتتلقاهم الملائكة ملائكة أيا كهر من دونتا وصود وين دونتا واستقبال دونتا ومحي كهرن دونان هذا يومكم الذي كنتم توعدون مالكا ومالكني هذا هيدين كو الله يبوهي مالنتي أبا المرين تويان لنا أبا المرين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين سمد وانقاذنا إلى هيري حاشد كتابك كنت على مركز خرستان سداد الركتان من الرقينا إلى هيري السمد كما بدأنا أول خلق نعيده أبورك سدو مركز وراها كسو علين دونا سدوها
aadam calayhi salaam markii la abuuray dhar ma qabin, adiga markii hooyadaa ku dhashay dhar maad qabin, sidii lagugu abuuray baad ku soo bixin doontaa. wacdan calaynaa baa ilaahay yidhi, ballankaana annaka ayaa qaadnay baa ilaahay yidhi. innaa kunnaa faaciliin, ay qaadiriina baa ilaahay yidhi. bani aadanka sidoodii inaan ku soo celinnaa awooddaa waan leenahay baa ilaahay yidhi. iyakoo cagaagan oo qaaqaawan oo dharla'aan oo dhar qabin inaan banka qiyaama soo joojinno waan karnaa baa ilaahay yidhi. ballankaana annaka ayaa qaadnay, waanan buuxin doonnaa baa ilaahay yidhi ballankaas. maanta adduunyaad joogtaa, laakiin baritool aakhiraad tegaysaa. laakiin qof walowba waxaad ka fikirtaa ilaahay maxaad la hortegaysaa. waxaad adduunyada ka qaadato khayr iyo shar unba aakhiro lagugu sarrifi doonaayo ogow. ina alabraara la fii naciimin wa ina alfujaara la fii jaxiimin. haddii adduunka dusheeda ilaahay aad ka baqdana naciim baad ku sugnaanaysaa. haddii fujaarta dariiqay mareen aad martana waa jaxiim waxaad ku sugan tahay ogow. labadaa qole midkaa tahay in adigu isqiyaas.